markana bal waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofonka mid ka mid ah guddiga soo qaban qaabiyay mudaharaadka waa gudoomiye ku-xigeenka waa Saadiq Cabdi waliba Saadiq Cabdi uu ahaa ninkii ka caawinayay dhinaca farsamada dadka halka ku mudaharaaday iyo guddiga bal waxaan weydiinayaa isagana sababta uu arrintan oo dhan waqtigiisana u geliyay ayuu aan ognahay inaan qurbo joogno madaxweynaha Soomaaliya dalka uu ka yimid aan ognahay markii ugu horeysana maahan oo madaxweynaha lagu mudaharaado Saadiq Cabdi waa engineer waxaanu degan yahay magaalada Minneapolis engineer intii aad magaalada joogto waan ku arkay aad baa u shaqeynaysay dhinaca farsamada aad baa uga caawinaysay intaasoo energy maxaad u gelinaysaa madaxweyne hal habeen imaanayo oo joogayo oo baxaya ma halkan looga baahayaa in laga mudaharaado mase dalkiiba looga baahayaa in laga mudaharaado waddo kale sameeyaa weyseen oo aad madaxweynaha kula hadashaan uguna soo bandhigtaan waxa aad u baahan tihiin waxaan u taaganahay mar kasta inaan muujino shucuurta dadka Soomaaliyeed ee aan awoodin inay gudaha Soomaaliya ku soo bandhigaan waxa ay dareemayaan gudaha Soomaaliya xildhibaanadii baa lagu dilayaa nimankii oo muxuu ahaa advocate ku ahaa oo dhan oo siyaasadda dawladda uga turjumayo oo dhan mid kasta madaxa la qalajiyay sidaa darteed annagu waxa waaye waddan xora oo lagu hadli karo oo freedom of speech asaad arkayso mudaharaadyadaas oo dhan qabanqaabadiisa howl weyn baa naga gashay waxaan ka soo horjeednaa waa siyaasad xumada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ma aha markii ugu horeysay lagu mudaharaado Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu dalka gudihiisa ama dibadbax maanta ku ekaan doono waa revolution socon doona ilaa inta la gaaro muxuu ahaa siyaasad dadka Soomaaliyeed ay ku wada midaysan yihiin Xasan Sheekh Maxamuudna waxaan leenahay ma aha ninkii siyaasadan hadda Soomaali ka saari lahayd dhibaatada ay ku jirtay 24 sano hoggaanka u noqon lahaa marka sidaas darteed Xasan Sheekh waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed ee boorarka kala duwan ee ka yimid dhinacyada kala duwan ee Soomaaliyeed shucuurtooda bay muujiyeen rabitaankoodii ku saabsanaa in ay muxuu ahaa diidan yihiin maamulkaadii siyaasadda ay muujiyeen sidaas darteed waxaanu leenahay u hoggaansan wax dadka Soomaaliyeed ay muxuu ahaa ay rabaan ee ah inaad muxuu ahaa xukunka si nabadgelyo la isaga wareejiso ummadda Soomaaliyeedna ay muxuu ahaa xor u noqdaan iyo baarlamaankiisa kale inay ninkay doortaan soo doortaan waan ku salaamay caawiliyadi waxaan ognahay madaxweynaha dalka Mareykanka imaanshihiisa in uu marti yahay oo u baahan yahay madaxweynaha Soomaaliya in la soo dhaweeyo laakiin dadka ka soo horjeeda ayaan gabar kamid ah waxa aan weydiiyay baahida loo qabay in madaxweynaha la soo dhaweeyo ayadoo aan lagu mudaharaadin maxaad ugu tagi weedeen madaxweynaha awlaad li weedeen idinkoo heli karay inaad gudaha gashaan oo aad dhagaysataan khudbadiisa waxa ay ku jawaabtay iyadoo Somali Channel u warantayna waxa ay tiri bismillaahir rahmaanir rahiim waan idin salaamayaa dhammaan meediyaha sharafta leh xanuunka Soomaalida ayaa gaar ahaan waxa ay haaya dhibaatada ka taagan shabeellada hoose iyo all South West State dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ilaa shabeellada hoose dhibaatada hadda noogu wanahaysato wuxuu nagu celiyay 91kii magaalada wadanka gobolada aan ka soo jeedo dhibaatadii ka dhacday cid kasta way og tahay Madiinatul Mawda loo bixiyay maantana tii uu nagu celiyay Xasan Garguurta markuu inta soo aaday intuu hub qaaday buu Baydhabo geeyay si loo dhameeyo golaha guurtada sharafta leh ee 73 qof ka kooban ma soo dhaweynayno haddana maanta meesha qashinka laga soo galay qashanku ku dhamaan doona biidinaahi kariim bismillaahir rahmaanir rahiim dadka South West State dagawa en nabada fadaan dawladda aan baahna shacabka ay shurto biyaw oo xoolo dhaqatada ee beeroleyda ee wabiyalka dhatiyo dagawa en Xasan Garguurta nabad ma fadaaw 73 qof oo golo guurta ee qabna golaahi guurtiga diidi sadalan tuug ee diyaarad indiri xamara sheeni dadkaas hadana tumisiyad sad gobol suubiyeeri wal al walilu suubiyaw Soomaali Maxamed ogolna South West dadka dhango wada degan dadkaasay 73 qabiil ee oo degan Baydhabo shanta Soomaali kamid ee South West State fadhisho Baydhabo ee yahubka daldalahay Xasan Safarow oo dagaalani haay South West State dad masaakin ee beeraley ee dawladda aan baahna Soomaali Maxamed don jeelna Puntland ha guulaysato Somaliland ha guulaysato jub Soomaalida ha heliidoy nabada ogolna qaatoma State ha guulaysato fanaanadii taayna qaranka hayti ilaahay wiina waaxida in naxariis meeliyar ka dhimati Saada Cali Warsame fanaanadayna qiimaha lahayti maalintii Saada dhimati sidii uu surugniyo Xasan Garguurta Saada shabaabka hubka la dili usu dhiibi shabaabka bustoole qaadayaan wajiga dabooladaayaan markii dad dilaayaan baaburka intaas la ka bursaday ciidamada United Nations ka lacagtiis biyaw oone ma ilaali waayeen ma qabad waayeen
مساكين الله كوسي سارة علي ورسم لانكي دلي محكمة هيك القرآن حسن سفرو